salaamullaahi calaykum asxaabta sharafta badan ku soo dhawaada kanaalkeena wax ka baro. maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc xasaasi ah. ciwaanka mowduucaasi wuxuu noqon doonaa sidee ku soo jeedan kartaa qalbigaasi jeeda. ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. dunidan aynu gudkeedu saarannahay waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, kuwaas oo aan isku diin, isku naf, isku dhaqan toonan ahayn, balse waxay ka wada siman yihiin dareenka, jacaylka, hinaasaha, maseerka iyo waxyaabo kale oo badan. qarniyadii hore jacaylka wuxuu u ahaa mid dadka aad u qadariyaan, aadna u qiimeeyaan. waxaynu ognahay in dadka badan ay u dhinteen jacaylka, halka kuwo kalena dhibaatooyin badan kala kulmeen. laakiin waxaa xaqiiq ah in jacaylku yahay wax jira, kaasi oo ka bilowda ka helitaan, iskuna bedela dareen ka abuurma qofka qalbigiisa. dadka aaminsan in jacaylku aanan ahayn wax aan jirin, waxaynu dhihi karnaa waa kuwo aan fahansaneyn wuxuu uu yahay jacaylka, oo aan weli wax jeclaan. haddaba su-aashu waa sidee kusoo jiidan kartaa qalbigaasii jeeda? dhalinyaro badan ayaa arrintani la soo gudboonaatay, kuwaasi oo qaarkood ku degdegay inay usoo bandhigtaan jacaylkooda qofkii ay jeclaayeen, iyadoo aan isweydiin maxaa kaaga imaan kara. maxaa dhacda inta badan in qofkii ay usoo bandhigteen jacaylkooda uu soo dhaweeyo soo dhaweyn aan uurka jirin, balse ay ka tahay niyadhis, iyadoo qofkii jacaylka hayana uu u qaato inuu ku guuleystay jacaylkiisa, uu helay qofkii uu gaclooday. laakiin muddo kadib ayuu ogaadaa inuusan helin jacaylka, uu ku guuldareystay kasbashada qofkii uu qalbigiisa ku taamayay. taasina waxa ay sababtaa niyadjab weyn, iyadoo qalbigiisu soo gaaro dhaawac xanuun badan. qaar kale oo ka mid ah dhalintan waxay aadaanta ku kalifta in ay qarsadaan jacaylkooda intii ay ku guuldareysan lahaayeen, xumeyn kala kulmi lahaayeen usoo bandhigidda qofkii ay jeclaayeen. taasina ma ahan mid uu qalbigooda ku boogsanayo, waxaana kusii kordhaya jacaylka iyo rabitaanka uu u qabo qofka uu jecel yahay. soomaaliduna waxa ay ku mahmaadaa waxaad qarsato way ku qarsadaan. haddaba waxaynu kuusoo bandhigi doonaa 12 qodob aad ku soo jiidan karto qalbiga qofka kaasii jeeda. qodobka koowaad, soo bandhigasho. ugu horeyn, ha noqon qof ku degdega u bandhigidda ama u gudbinta qofka aad jeceshahay fariintaada jacaylka. qodobka labaad, dabeecad. waa inaad tahay qof furfuran oo dabeecad wanaagsan leh. qodobka saddexaad, xishood. mar walba waxaa lama huraan ah inaad ahaato qof xishood badan. qodobka afaraad, qurux. waa inaad tahay qof qurux badan oo soo jiidashana leh. quruxdu ma ahan mid wejiga keliya, ee waa quruxda qarsoon ee dabiiciga ah iyo habdhaqanka wanaagsan. qodobka shanaad, xog ogaansho balwad. haddii aad tahay gabadh ama wiil, ku dadaal sida aad u ogaan lahayd qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo ama balwadiisu tahay, adigoo aan weydiin qofka aad jeceshahay, balse raadi waddo kale aad ku ogaan karto, sida adigoo ka wareysanaya saaxiibkii ama saaxiibteed, adigoo aan lagaa dareemin ujeedkaagu wuxuu u yahay. qodobka lixaad, sheeko. mar walba ugu sheekeey qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo uuna ka helo. qodobka toddobaad, xiriirin. qofka aad jeceshahay haddii uu yahay qof kaa fog oo aad labo wadan ku kalnooshihiin, ku dadaal sidii aad ku xiriirin lahayd mar walba, adigoo telefoon kula hadlaya ama waraaqo lagu qoray ereyo qalbi uroon uguna diraya aaladda casriga ah ee internetka. haddiise aad hal wadan ku wada joogtaan ama ku wada nooshihiin ama aad meel ku wada shaqaysaan, waa inaad mar walba usoo dhaweysaa weji furan oo aad farxadda ka muuqato. qodobka saddeedaad, ka warqabid. qofka aad gaclootay haddii uu kaa fog yahay ama meel wada joogtaan, noqo qof ka warqaba oo la qaybsaya farxadda iyo murugada wixii soo wajaha. qodobka sagaalaad, xiiso. noqo qof loo xiiso marka uu maqan yahay iyo marka uu joogaba. qodobka 10aad, balanta. waa inaad tahay qof mar walba ilaaliya balanta, oofiyana axadka. 10aad, hadiyado. ku dadaal in aad hadiyado u geyso qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo, ogowna hadiyeenta qofka qayb libaax ayay ka qaadataa kobcinta jacaylka. qodobka 12aad,
tixgelin. Haddii aad mar walba qofka aad doonayso dantiisa aad ka hormariso adiga taada, qofkaasi wuxuu dareemayaa ugu dambeyn inaad si qaas ah u tixgeliso misna qalbigiisa aad ugu weyn tahay. Intaas kadib, adiga oo aan waxba samayn ama aadan soo bandhiganin, adiga ayaa laga yaabaa in qofka aad doonayso in ay dareemihiisa u sheegaan inaad tahay qofka kaliya ee xaqa u leh inuu jacayl la wadaago. Qofka intaasi ku dareemi waayo, si kale hadduu isu heeshan xitaa weligii sirta nolosha makula fahmayo ee waqtigaaga ha ku sii daawashada muuqaalka. Guuleysta si aad u hesho muuqaalo ku xiiso geliya, subscribe oo ku soo dhawow channelkeena wax ka baro. ugu yaraan hal qof gaarsii linkiga channelkeena wax ka baro. Bye bye.